السلام عليكم على الخضاب walaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada quruxda badan. Rabbi subxaanahu watacaala waxaan kaaga rajaynayaa caafimaad taama. Maanta waxaan rabaa walaal inaan kula wadaago qiso qalbiga aad iiga xanuujisay. Waa qiso runtii markasta aan soo xasuusto taas ayaana jeclaystay inaan maanta kula wadaago. Waxaan rabaa inaad tusaale u noqoto wiil kaste oo ku fakaraya hadda kadib inuu gabar xumeeyo. Walaalayaal, qisadan waxaa qoray ninka ay ku dhacday, asaga ayaa gacantiisa ku qoray, laakiin wuxuu codsaday inaan magaciisa la sheegin. Wuxuu dhahay jaamacad ayaan dhiganayay, jaamacaddana wiilasha mid kaste gabar saaxiib ayuu lahaa. gabar ayaan jaamacaddii ka bartay. Markaan gabadhii jaamacad ka bartay waan la sheekaystay, xiriirkeen waa uu sii dheeraaday, waxauna noqday mid uu shaydaan faraha la soo galay. gabadhii xiriir aan wanaagsaneyn ayaan dhex maray. kadib gabadhi ur ayay yeelatay, faamilgeedii ayaa ogaaday inay ur yeelatay. kadibna waxay weydiiyeen qofka urka u yeelay. wuxuu dhahay walaalkeed ayaa ii yimaaday, kuleetiga ayuu inoogu dhegay, wuxuu inoogu dhahay walaashay ayaa uraysa. dagaal ayuu la soo galay. kadib wuxuu dhahay waxaan uga jawaabay anig miyaa walaasha ureeyey? cadin miyaad u haysa inaan walaasha ureeyey? meelahaasaa laga soo ureysad ani ila imaanaysa miya waxaas? waan ku jejeesa ayuu dhahay. kadib wiilku ayuu ga tegay. faamiligaas qisadoodana halkaas ayay ugu dambeysay. muddo kadib maalin maalmaha ka mid a ayaan guriga imaaday. hooyo oo qaylinaysa, waxaan dhahay hooyo maxaa kugu dhacay? waxay igu tiri walaasha. wayna suuxday. anigu waan yaabay, maxaa dhaho hooyo biyaan ku shubay, way soo naxday. hooyo walaasha maxaa ku dhacay? walaasha. mar kale ayay suuxday. hooyo biyo ayaan ku shubay, cabaar ayaan sugay, way soo naaxday. mar kale hooyo walaasha maxaa ku dhacay? walaasha ayay ku qaylisay, wayna suuxday. mar kale ayay soo kacday, hooyo walaashay maxaa ku dhacay? walaasha uur ayay leedahay. laa xawla walaa quwata illaa billah. wuxuu dhahay walaashay ayaan u tegay, abay uurkaa ku yeelay. wiilka ayay ii sheegtay, waan u tegay, waxaana ku dhahay hadda waxaas waaba dhaceen, bal iga astur walaasha u gurso. wuxuu u dhahay way ugu jejeesay. wuxuuna igu dhahay anig miyaa walaasha ureeyey? kaale cadin miyaad u haysa inaan walaasha ureeyey? meelahaasaa laga soo ureeyey, kadib anaad isoo aadaysa miya? sidii aan wiilka ugu jejeesay ayuu aniguna igu jejeesay. markaasna waxaan soo xasuustay dulmiga aan sameeyay ayaan soo xasuustay. qisada halkaas kumayna dhammaan. wuxuu dhahay muddo kadib waan guursaday, xaas qurux badan ayaan guursaday. habeenka arooska ayaa waxaan ogaaday in xaaskayga hor u sinaysatay. waxayna igu tiri ilaahay ha ku asturee i astur. markaas waxay ugu soo dhacday waxa aniga aan sameeyey, dembiga aan hore usoo galay ayaa igu soo dhacay. qaraarkii ayaana laqay, sidii ayayna xaaskayga kusii ahaatay, waana u asturay. laakiin qisadu halkaas kumayna dhammaan. wiilkii wuxuu dhahay xaaskaygu waxay dhashay gabar aad iyo aad u qurux badan, sida dayxu u ifaysa. markay 6 sano gaartay ayaa waxaa kufsaday ardihii guriga. laa xawla walaa quwata illaa billah. waa gabar yaroo 6 sano jir ah, waxaa kufsaday ardihii guriga. wuxuu dhahay runtii aad iyo aad ayaan u ooyey. ilaahayow bas ilaahayow ayaan dhahay. walaalayaal, dulicda qisada aan u nimaano. gabadha walaal ayay lahayd, wuxuuna uu dareemay walaalka xanuunka uu dareemayo oo walaashiis ayaa la ureeyey. sidoo kale gabadhan uu soo farxumeeyey nin ayay u dhixi doontaa, waxaana la dareensiiyey xanuunka uu dareemi doono ninkaas hodhow gabadhan gursanaya. sidoo kale gabadhan aabba ayaa dhalay, qof ayay tahay miraha qalbigiisa, waxaana la dareensiiyey xanuunka ay leedahay markii gabadhaada la xumeeyo. haddaba walaal, ka digtoonow dulmiga iyo zinada. haddii aad maanta ku dhacdid, haddii aad maanta samaysid, ogow waxaa laga jari walaasha ama xaaskaaga ama gabadhaada. khayr ayaan idin rajaynaya. allah subxaanahu watacaala hana wada asturo insha allahna walaalaha la sii wadaag. asalaamu calaykum.